والله ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama dawladda Soomaaliya maanta AMISOM waxay u baahan tahay ma jirto waayo ciidankii qaranka ay waa dhismay waagii AMISOM loo baahnaa hadda lama joogo waayo ciidanka hadda asaas ku filan oo dawladda Soomaaliya waa isku filan tahay inta badan howlgallada arkaysid ama furimaha hore dagaalka wax dagaalamayo waa ciidanka dawladda Soomaaliya maadaama 2024 aan marayno si dhamaanaya sanadka maalin walba aniga inuu gaal korkeena oo canshuur oo ku cuno ama contracti oo ku cuno askariga AMISOM oo qaato $1,000 askariga ninka Soomaaliga oo qaato 200 farqi weyn ayaa u dhaxeeya wax walbana anaga ayaa qabsan karno waxa waa wiilasha qaranka Soomaaliyeed ayaa qaban karo ciidanka xoogana waa uu dhismaan leeyahay waa tiradii shalay lagu yaqaaninay si laba jibaar waa uu ka sii badan yahay maantana waa isku filan yahay ayaa leeyahay AMISOMne looma baahna